kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada mowduuc ka duwan mowduucyadii horay aynu kaga hadli jirnay maanta waxaynu soo qaadanaynaa TikTok iyo dhibaatada uu Soomaaliya ku hayo mowduuca maantana ciwaankiisu waa dhibaato intee le'eg ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka dhaxleen aaladda TikTok waa meel lagu soo duubo muuqaalo dhowr ilbiriqsi ah ama dhowr daqiiqo si aan wada ognahay bulshada adduunka sanadihii u dambeeyay aad ay isku dhex gashay waxayna wadaagayeen waxyaabo badan waxay iska barteen wax badan oo horay aysan u wada aqoon bulshooyinka adduunka marka laga soo tago Soomaaliya dhibaato xoogan ayuu ku hayaa TikTok hal isku sameeyo waxyaabo qaldan ama dad kala duwan ha sameeyaane isticmaalka ugu badan ee TikTok xumaanta ayaa loo adeegsadaa waxyaabaha bulshooyinka adduunka isii baray waxa kamid ah aalado application ah ama barnaamijyada nagu soo biiray sanadihii u dambeeyay kuwaasi oo bulshooyinka hal meel isku keenay istusay waxa ay yihiin aaladan cusub ee dunida ku soo biirtay waxay sababeen inay bedelmaan aragtiyo dhaqamo fikrado iyo fahan bulsheedyo cid u gaar ah tusaale Soomaalida waxa lagu aaminsanaa bulsho leh dhaqan suuban dabci wanaagsan akhlaaqsan inkastoo aysan maadiyan u hormarsanayn haddana dhaqanka iyo diinta ay aad ugu dheereeyeen aaladan casriga ah dartood ayaa Soomaalida laga aaminay taas lidkeeda laakiin waxa maalmihii ugu dambeeyay social media bulshada Soomaalidu ay aad ugu isticmaalaysa aaladda TikTok dumar fara badan ayaa halkan ku soo bandhigaya arrimo aad u xun sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waqti badan ku bixinaya waxaana sanadihii ugu dambeeyay la sheegay in dhalinyarada waxbarasho diidka ah aaladan ay aad ugu badanayeen isticmaalkeeda waxyaabaha ka jira waxa kamid ah TikTok astur la'aanta xad dhaafka ah ama xadka ka baxsan ee dumarka isku dhacyo dhexmara qoysas Soomaaliyeed dhiirigelinta dhaqamada xunxun wuxuu sameeyay waxbarashada dhalinyarada sidoo kalena saaqidnimo ama qofka inuu howlgab noqdo ayuu ku soobayaa mowduucayna maanta aynu kaga hadlaynay dhibaatada TikTok saaxiibayaal waanaga inta ay muuqaalkan inoo sheer gareeya mahasanidiin